السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داوده كسو دhowow qaybtii saddexaad ee tababarka saxaafadda waxaad kala socotaa xarunta tababarka ee Koronto hadii aad ku cusub tahay casharadan fadlan subscribe de like saar comment saar waxaad kala furataa alertka si markasta aad ula socoto casharadan kuwii hore ee ku dhaafay ee koowaad iyo labaadna hore u soo daawo maanta waxaanu ka hadli doonaa hadii aan la yiraahdo qaybteena saddexaadna ay ku saabsan tahay wareysiga haddaba waa maxay wareysi wareysi waa qof ama laba qof ama in ka badan oo su'aalo weydiinaya qof ama laba qof ama in ka badan waa maxay macnuhu hal qof ayaa su'aalo weydiinaya laba qof isku mar ama in ka badan ama laba qof iyo in ka badan ama hal qof ayaa su'aalo weydiinaya qof macnaha laba qofna way is wareysan karaan qofna dad badan wuu wareysan karaa mar qura laba iyo wixii ka badanba tusaale aan soo qaadano anigu marka aan wareysi ka qaadayo suhuur oo kale iyada baan wareysanaya aniga iyo Saciid xagaana suurtagal weeyaan inaan suhuur wada wareysano sidoo kalena aniga iyo Saciid xaga waa suurtagal inaan wareysano dad badan oo team fara badan ah dhinaca kale suhuur aniga kaliya ay wareysan kartaa aniga Saciid xagaana wayna wareysan kartaa iyaduna way wareysan kartaa sidoo kale dad badan hal mar laakiin shuruudu waa maxay waa in su'aaluhuna hal dhinac ay ka imaanayaan jawaabuhuna hal dhinac ay ka imaanayaan macnaha hadii labada qof aniga Saciid xaga tusaale ahaan oo nala wada wareysanayo hadii su'aalaha aynu isweydiino inaga aynuna isaga jawaabno wareysi maaha waxay noqonaysaa dood wareysiga shuruudiisu waa in su'aaluhu dhinac ka imaanayaan jawaabuhuna ay dhinac ka imaanayaan markaynu ka hadalna marka waa maxay wareysi su'aasha kale isweydiinta la wax weeye la wareystayaashu waa ayo yaa la wareystaa inta badan waxa laga yaabaa hadda wareysi markaad maqashay kugu soo dhacday masuul la wareysanaya iyo dad qof xilhaya laakiin wareysiyada ugu muhiimsan cidda la yeesho ee xogta ugu qiimaha badan dadkana macnaha u sameeysan laga qaado waa dadka goob joogayaasha ah maxaa yeelay inagu waxaanu warinaa oo aanu ka hadalnaa dhacdada inuu ka hadlaynana dad baa inoogaga xog ogaansan oo meesha joogay dadkan goob joogayaasha ah aqoon uma leh waxa aad ka hadlaysid noocay ay tahay tusaale ahaan shil gaari baa dhacay sheekad rabtaa inaad ka qortid qofka goob joogaha ah shaqadiisu ma aha inta dhimatay iyo inta dhaawacantay shaqadiisu ma aha cidda khaladka iska lahayd laakiin shaqadiisu waxa weeye sideebay wax u dhaceen sababta uu muhiimka u yahayna waxa weeye dadkii akhrisanaya sheekada ama daawanaya ama dhageysanaya ayuu u sameeynaya macne uu u sawirayo dibna ugu celinayo wixii aragtidiisu macnaatiradiisu ay duubtay hubi qofkaasi inuu goob jooga yahay goob jooguhu loo sheekeeyo lagu waramay ma aha waa qof markaa taagnaa meesha dadka kale la wareysto waayo waa khabiir qof khabiir ah oo waxan yaqaana tusaale ahaan sheekh diinta yaqaana qof aqoon u leh cilmiga caafimaadka qof aqoon u leh dhismaha qof aqoon u leh dibdimiska qof aqoon u siyaasadda ka warhaya qof khabiira oo waxaasay qofkaasi marka wuu falanqeeyaa wuxuu keenaa xalka ayuu keenaa wuxuu keenaa waxan sideebay tahay in la yeelo sidoo kale waxa kale oo la wareystaa dadka xiriirka la sheekada dadka sheekada xiriirka la leh waa dadka ugu muhiimsan oo ay tahay in markasta ay ku jiraan wareysiga waa ay dadka xiriirka la sheekada waxa loo yaqaanaa ila wareedka marka laga waramayo in kasto aan qaybta dambe ugu iman doono ila wareedka marka ka shaqeynayno laba ila wareed baa jira qofna waxa weeyaan ila wareedka labaad oo secondary source baa leeyahay midna waa midka koowaad oo primary source baa leeyahay dadka xiriirka la leh waa dadka primary-ga ee muhiimka u ah sheekada ee hadii la waayo aysan sheeka jirin dadka xiriirka la sheekada waxa weeye abaarta dhacday dadka ay xoolo tirtay fatahaada dhacday dadka wax ku noqday qalinjibinta ardayda loo sameeyay ka xuska loo qabtay ee keenay in farxadan maanta la muujiyo waa dadka xiriirka la leh sidoo kale waxa iyagana wareysi la yeeshaa dadka caadiga ah wareysiga marka waxa muhiim ah inaad maskaxda ku haysid marka aad rabtid inaad cid wareysatid
su'aalaha ay tahay inaad weydiisid waa inaad iska hubisid ha weydiin qofka marka koowaad su'aal aadan adigu jawaabteeda garanayn maxaa yeelay waxaadan hubin yani waxa kuu soo baxaya waxa ay yihiin ma hubtid wuxuu kuu sheegaa kuu runa waxa iyadana marka xusid mudan adigoo weydiinaya oo ka wareysanaya wax aad hubtid ha weydiin haddana su'aal xiran yani su'aal xiran waxa weeye su'aal jawaabteedu ay maya ama haa noqon karto ha weydiin sida tusaale ahaan oo kale ma taageersan tahay sharciga caafimaadka ee baarlamaanku ansixiyay ma ka heshay nolosha magaaladan miyuu wanaagsanaa xiriirka idinka dhexeeya adig iyo hebel yani su'aalaha noocaas oo kale ah maxaa loo diidayaa waxaa loo diidayaa qofka kuu jawaabaya wuxuu kugu jawaabayaa haa tusaale ahaan waxaad su'aalaad weydiisay haa maya haa maya haa maya ayuu ku yidhi waa suurtagal qofkaasi biri jawaabtaas inuu ku yiraahdo anigu sidaa kuguma jawaabin oo markii aan haa ku dhahayay haa meel kala taalay ayaa halkan la keenay laakiin qofka weydiin su'aal furan sidee u aragtaa sharciga baarlamaanku ansixiyay marka kuma jawaabi kara haa sharaxaad buu bixinaya haddaba daawadayaal halkaasaan ku joojinaynaa qaybteennii maanta casharkeennii maanta haddii aan la yidhahdo casharka soo socda wuxuu nooga bilaaban doonaa qorshaynta waraysiga habka loo qorsheeyo iyo habka su'aalo weydiinta iyo sida loo diyaariyo fadlan la soco oo ku xidhnow youtube-kan aad hadda ka daawanaysid subscribe dheh like saar comment furo alertka si mar kasta aad ula socotid casharada haddii aad hadda ku cusub tahayna dib ugu noqon labadii hore oo hore usoo daawo aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii commenti ahna waxaad igu reebi kartaa xagga dambe ama waxaad igu soo diri kartaa email mahadsanid